xildhibaan Saleebaan Nuur Warsame Food oo mudane ka tirsan golaha wakiilada Somaliland oo booqasho ku jooga dalka Sweden ayaa xarunta baarlamaanka dalka Sweden kulan kula qaatay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalkan Sweden. xildhibaan Food ayaa la kulmay Master Ola Moller iyo waliba Anders Osterberg oo ka tirsan xisbiga Socialka iyadoo uu kala hadlay arrimaha doorashada Somaliland ee ku mudaysan sanadka soo socda ee 2022 iyo sidii ay dalka Sweden qayb uga qaadan lahaayeen in doorashada waqtigeeda la qabto maadaama dalka Sweden uu ka mid yahay wadamada Somaliland ka caawiya arrimaha doorashooyinka iyo waliba horumarka. sidoo kalena dalka Sweden uu imika midowga Yurub wakiil uga yahay arrimaha Somaliland iyo Soomaaliya kadib markii dalka Ingiriiska oo hore wakiil uga ahaa uu ka baxay midowga Yurub. xildhibaan Ola iyo xildhibaan Anders ayaa iyaguna sheegay inay doonayaan in doorashada madaxweynaha la qabto xilligeedii si loo ilaaliyo geedi socodka iyo dimuqraadiyadda Somaliland oo ay ku tilmaameen mid ku dayasho mudan. kulankan ayaa waxaa xildhibaan Food ku heelanayay diblomaasi Caydiruus Sheekh Aadan iyo gudoomiyaha dalada lagu magacaabo Sumbul injineer Cabdi Cali iyo waliba Deeq Caraale oo kamid ah aqoonyahanka reer Somaliland ee ku dhaqan dalka Sweden. My name is Ola Möller and I'm MP from the Social Democratic Party here in Sweden, and I'm representing Helsingborg och Skåne. I think it's very important that your country is keeping its fantastic path towards democracy and hold their elections next year. I think it's fantastic to follow Somaliland as a bright light in Eastern Africa to democracy and human rights. And I congratulate. waxaan maanta joognaa xarunta baarlamaanka ee wadanka Sweden. waxaan la kulanay oo xildhibaanada baarlamaanka uu ka mid yahay Ola uu ka mid yahay ayaan maanta si wanaagsan Anders ayaan la kulanay maanta waraysi wanaagsan kadib aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida maartay wanaagsan maartay aan kulanka isla qaadanay anagoo ka hadalay oo wax iska weydiinay arrimaha doorashada Somaliland waqtigeeda kulleeto aynu imika madaxa la galayno iyo atraafka iyo arrimaha Somaliland inay iman doonaan waxaan inoogu ballan qaadanay iman doonaan dalka sida ugu dhaqsaha badan insha Allah iman doonaan waddanka Somaliland annaguna waxaan ugu ballan qaadnay inaan soo dhaweyno si wanaagsan oo heer sare oo xisbiga waxay ka soo baxeen xisbiga Social Democratic ee ugu weyn xisbiga waddanka Sweden ugu weyn runtii oo maartay xisbiga muddo dheer ka soo talinaya waddanka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta inaanu la kulanno xildhibaanadan qaaliga waanan soo dhaweynaa waxaan inoogu iman doonaan Somaliland haddii alla ka dhigo aad iyo aad baad u mahadsantihiin. maanta waxaanu joognaa baarlamaanka waddanka Sweden waxaa halkan nagu qaabilay laba xildhibaan oo ka tirsan xisbiga Social Democratic oo halkan nagu qaabilay maanta si fiican nagu soo dhaweeyay. waxay ballan qaadeen in ay la socon doonaan arrimaha Somaliland iyo doorashooyinka iyo sida ay u socdaan, iyo waxay kala ballan qaadeen inay iman doonaan waddanka markuu waqtigu u saamaxo, waxayna si dhow ula socon doonaan doorashooyinka madaxweynaha ee inagu soo socda haddii Rabbi idmo sanadka soo socda November 2022. Barkhad Cabdilaahi Maxamed, Home Cable TV, xarunta baarlamaanka ee dalka Sweden ee magaalada Stockholm.